Itoobiya waxay xilligan u muuqataa dawlad casri ah oo qorshayaal istiraatiijiyad oo qoto dheer kale iskaashiga iyo ilaalinta maslaxadda shucuubteeda iyadoo si ballaaran u furtay xiriirro dhaqaale iyo kuwo bulsho oo u suurageliyay inay hore u sii socoto sanadba ka xiga waana dalka xarunta oo ah dalalka qaaradda Afrika waana wadanka loo aqoonsaday inuu ka mid yahay wadamada ugu horeeya ee ka howlgala gaaritaanka horumar la isku halloon karo oo ay qaaraddu ka gaadho dhinacyada dhaqaalaha siyaasadda iyo ammaanka tusaalahaan shirkadda diyaaradaha Itoobiya oo xilligan leh xuduud farsamo iyo mid adag oo dhanka diyaaradaha madaniga ayaa waxay kor u qaaday si ballaarinta isku xidhnaanshaha iyo isu socodka bulshada qaaradda iyadoo shirkadda diyaaradaha Itoobiya ay boqolkiiba 25 dadweynaha Afrika ay rakaab ahaan u adeegsadaan oo ay ku xidho caalamka intiisa kale waxaana dakhliga ka soo xarooday shirkadda duulimaadada Itoobiya uu sanadkii 2016 gaadhay 2 bilyan iyo badh oo doolarka Mareykanka waana shirkadda duulimaad ee ay ka shaqeeyaan dad tiradoodu gaadhayso 14,000 oo qof waana shirkadda iska leh ee adeegsata ilaa 150 diyaaradaha rakaabka waxa kale oo Itoobiya awood saartay xiriirka iyo wada qabsiga ay la yeelanaysay dalalka la jaarka iyadoo maalgashi fara badan oo bilaayin doolar gaadhaya ku maalgashatay wadamada ay dariska yihiin gaar ahaan dhinacyada jidadka tareenada duulimaadada dekedaha dabka elektriga iyo jidadka waana maalgashiga la halmaala aragtiyaha ururka midnimada Afrika ee lagu xaqiijinayo helitaanka kaabayaasha nolosha aadamaha ee caalamiga kuwaas oo qayb ka ah qorshaha hiigsiga xilliga fog ee qaaradda oo ku suntan sanadka 2063 tareenka casriga ee isku xidhay Itoobiya iyo Djibouti ayaa ah mashruuca qiimihiisu gaarayo 3 bilyan iyo badh ee doolarka Mareykanka waana tareenka haatan sida fudud isaga goosha magaalooyinka waaweyn ee labada wadan kaasoo xamuulahaana u qaadaya badeecadaha ay labada dal isu dhoofinayaan waana xidhiidh ganacsi oo dhabaha u xaari kara horumarka taabagala guud ahaan gobolka Geeska Afrika dhanka kale iyadoo Itoobiya dadaal dheeraad ah ka wada dhismayaasha jidadka iyo laamiyada isku xidhaya wadamada gobolka ayaa waxa ay wadooyinkaasi noqonayaan kuwo qayb weyn ka qaadanaya sida ay dadka wax soo saarka ku mashquulsan ay badeecadahooda iyo miraha beerahooda u gaarsiin lahaayeen suuqyada magaalooyinka waaweyn iyo dekedaha caalamiga xilli ay shirkadaha shisheeye ee dalka maalgashadayna ay wax soo saarka warshadahooda gaarsiin karaan dalalka jaarka oo ay qiimo macquul ahna kaga heli karaan xilli ay dalalka la deriska Itoobiya laftoodana fursad ka helayaan baahiyaha adeeg ee ka jira gudaha Itoobiya isla markaana u dhoofin karaan halka agabyada lagama maarmaanka iskaashiga iyo wada qabsiga dalalka meel wada diga waxa ay faa'iido weyn u tahay malaayiin dad oo mandaqada ku wada nool taageerteena Itoobiya ayaa muddadii sanadaha ahayd ee u dambeysay waxa ay ku talaabsatay koob dhaqaale oo la taaban karo oo dhinacyada badan waana arrin ay asaas u tahay ku dhaqanka istiraatiijiyadda siyaasadda ammaanka ee ku saabsan gaaritaanka dhaqaale ku dhisan xuduudda warshadaha dawladda Itoobiya waxay 10 sanadood ee u dambeeyay ka mid noqotay 5 wadan ee aan shidaalka soo saarin ee dhaqaalahoodu ugu korriimada badan yahay iyadoo kobaca dhaqaalahoodu uu sanadkiiba sameynaya lagu qiyaasay 10% sida uu cadeeyay sanduuqa lacagta ee dunida dhaqaalaha Itoobiya ee koray ayaa waxa uu qayb ahaan hoos u dhigay xaddiga saboolnimada ee wadankaasi oo sanadkii 2000 marisay 40% waxaana ay hoos ugu dhacday 30% sanadkii 2011 sanadkii 2009 dakhliga wax soo saarka gudaha ee sanadlaha ee dalka Itoobiya waxa uu gaarayay 161 bilyan oo doolarka Mareykanka waana sanadkii ay Itoobiya heshiiska kula gashay shirkadda Talyaaniga ah inay dhisto biyo xidheenka dhaamka cusub ee Itoobiya kaas oo ay ku baxayso in ku dhow 5 bilyan oo doolar waana kharashka ay 2 bilyan oo ka mid ah deyn ahaanta uga qaadatay sanduuqa horumarinta Shiinaha alka 3 bilyan oo kalena ay xukuumadda Itoobiya dusha u ridatay Itoobiya federaalka ku dhisan oo baaxadda dhulkeeda iyo tirada dadweynaheedu ay la mid yihiin kuwa wadanka Masar ayaa wixii ka dambeeyay sanadkii 2000 waxa ay bilowday maalgashi shisheeye oo dalka loo fasaxay waana qayb ka mid ah qorshihii furfurnaanta isbeddelka dhaqaalaha ee wadankaasi waana xilligii la sameeyay siyaasadii gunto isku geejiska ahayd ee dhanka dhaqaalaha lana yareeyay kharashkii ku bixi jiray hay'adaha dawladda waxaana la hirgeliyay wacyigelinta lagu soo jeedinayo maalgashiga iyadoo la hagaajiyay kaabayaashii nolosha aadamaha ee lagama huraanka u ahaa maalgashi dalka lagu sameeyo waxaana la fududeeyay shuruucdii la xidhiidhay arrintaasi dawladda Itoobiya waxay soo bandhigtay dhulbeereed ballaaran oo ay tahay in la intifaacsado dhulka oo qiimihiisa lagu soo celinayay muddo 20 sanadood dalalka Itoobiya maalgashiga ka samaystana waxa ugu horeeya wadanka Shiinaha oo halkaa geliyay adduun gaaraya 12 bilyan oo doolarka Mareykanka waxaana maalgashiga Shiinuhu u badan yahay dhinacyada gaadiidka adeegyada iyo warshadaha yaryar
waxaa kaloo Itoobiya maalgashaday ilaa 187 shirkadood oo ay Israa'iil leedahay kuwaasoo badankoodu ka howlgala dhinacyada tiknoolajiyadda biyaha iyo beeraha iyadoo Israa'iil sanad walba ka soo iibsata Itoobiya badeecado qiimahoodu gaadhayo 46 milyan oo dollarka Mareykanka halka waxyaabaha ay Israa'iil dhanka Itoobiya u dhoofisana ay gaadhayaan ilaa 18 milyan oo isla lacagtaas maalgashiga lagu sameeyo hadaba gudaha Itoobiya waxa aan ka maqnayn wadanka Turkiga oo ilaa 4 bilyan oo dollarka Mareykanka gashay dalka Itoobiya waxaana Turkigu ay tartan adag halka kaga kulmeen dalalka Hindiya iyo Shiinaha boqortooyada Sacuudiga ayaa iyada lafteedu maalgashi wanaagsan ku leh Itoobiya waxaana qiimihiisu gaadhaya in ka badan 5 bilyan oo dollarka Mareykanka kaas oo lagaga shaqeeyo ilaa 300 oo mashruuc oo qaabilsan dhinacyada cunto soo saarka iyo macdanta boqortooyada Morocco ayaa ilaa 4 bilyan oo dollar gaarsiisay maalgashigeeda gudaha Itoobiya iyadoo awoodda saartay dhinacyada gaadiidka cirka beeraha iyo dalxiiska waxaana qorshaha ugu jira inay Morocco ka dhistay Itoobiya warshada sibirka ee ugu weyn qaaradda Afrika wadamada kale ee Itoobiya ku samaystay maalgashiga dhaqaale waxaa ka mid ah wadanka Imaaraadka oo geliyay ilaa 1 bilyan oo dollar oo dhinacyada hodheelada cuntada iyo daawooyinka iyo dalka Qatar oo laga helo meel kasta oo Imaaraadka laga helo oo isaguna Itoobiya ku maalgashaday mashaariic qaabilsan isku filnaanshaha cuntada kuwaas oo qiimahoodu gaadhayo ilaa 1 bilyan dollarka Mareykanka waxaana intaas soo raacaan 1 bilyan dollar oo kale oo ay wadamo Latin America ay gashadeen dalka Itoobiya maalgashigan faraha badan oo ah sirta ka dambaysa kubaca dhaqaale ee ku talaabsaday wadanka Itoobiya ayaa waxa uu 13% kor u qaaday xaddiga warshadeynta waxaana uu hoos u dhigay shaqaalaantii hore u tirtay qiyaastan 5% iyadoo adeegyaduna 45% kor u kaceen qiyaastii ay ka ahaayeen wax soo saarka gudaha ee sanadlaha ee dalkaasi Itoobiya